ربواني ماذا كدور سؤال الله كدور وحانا بلييننا مدحوينا هلو لما نبلييننا مدحوينا هلو وحانا بلييننا كوي وهنييو لما نهوذ النذي وحانا بلييننا مدحوينا هلو وحانا بلييننا مدحوينا هلو وحانا بلييننا كوي وهنييو لما نهوذ النذي بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر آدي أدباني السلام يا دمانتين ورتي شرفتا dadka quruxda badan rag iyo haweenba sharfan xafladana aad uga soo qayb galay aad iyo aad baan soo dhaweynayna wadan maadsantihiin marka hore waxaan rabaa ilaahay baa mahadlayna ilaahay u mahadnaqno nabadda bashbashka ee barwaaqada ilaahayna siiyana lagu mahadnaqno marka labaad waxaan rabaa inaan laba jeer u mahadnaqo kow gudidii soo qaban qaabaysay xafladan quruxda badan ee waliba ay hormoodka ka yihiin dumarkeena reer Bristol ee aadka maaragtaanay u dhiiran ee kababalka ah ee maaragtaanay sharfan aad iyo aad baad u mahadsantii maanay leenahay marka labaad waxaan leeyahay ragga iyagana la'aantoodan la soconayn ee waayeel iyo dhalinyaro iyo dhaxdhaxaad bay isku jiraan ninkuna waad mahadsantihiin ilaahay baa inaga jisaysiinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin markas labaad waxaan rabaa saddexaad inaan u mahadnaqo gudidii ka soo shaqaynaysay labadii sano u dambeysay xusbiga la soo shaqaynaysay ee musdambeedka garabkii haweenka iyo fulintaba iyagana aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanay leenahay laba sanaad soo shaqayseen muruq iyo maal baad ku soo bixiseen alxamdulilah natiijo fiican baad maanta ayaa maaragtaan xusbigiina soo hooyey taasna waad ku mahadsantihiin istabtii labaad baa laynaga rabaa insha allahu dadaalka aynu soo gallay umaynu soo gelin maanta inaynu yacnihii madaxweynaha aan doorannay iyo ku-xigeenkiisa uun aynu kursigaa ku fadhiisinno dabcan waxaynu soo gallay inaynu waddanka wax kaga bedilno raggii hormuudka ayna hor socday bay ahaayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba allah cimriga uga dheereeyo xilkaa culus ay qaadeenna allaha maaragtaana u dhib yareeyo laakiin innakuna xilkaa waan la qaadnay waxaa laynooga baahan yahay inaynan halkaa kaga hadhin aan la daba joogno muruq iyo maalba marka aynu leenahay inaan muruq iyo maalba la daba joogno aan ilaahay waxa weeyaan dawlad wanaag baa laynooga baahan yahay ictiraaf waan iska haysanaa ictiraaf ilaahay baan haysanaa innakaa is ictiraafnay waddan Soomaaliland la yiraahdo oo adduunka meel kaga yaala geeska Afrika waliba ku yaala la yaqaano 26 Juun 1960kii Ingiriiskan aynu joogno ka xoroobay baanu nahay aad buu mahadsan yahay gudoomiye Ziyaad Tukaale Riiraash imigana waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdilaahi Maxamed oo ahaa xogayihii warfaafinta ee guddiga qabanqaabada falyatafadal Cabdilaahi بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سومالان هنولاتو أن الحمد لله مركز كواد إله أيام هذا سكالة أن إله أيام هذا سكالة مركز كواد يا مركز لبعض با أن فهمتي مركز كواد وحنو مهل علني يا جددي قبنقابضة أسيد شرف طلع يا كرامة با إنك مضرنتي إنه يسكون معنا قابتنا يدا إنه سورة جلسي أن وحنا جزاك الله خير وارد ما سنتين أن أنت كدب فهمتي أن ما أنت سيد حفلتنا كم وقتا حفلة وحويان حفلة آدي إنه قاليا وحفلة إنه وقت دير runtii iyo wadariiq dheer aynu soo marnay waxa horta aan ku soo dhaweynaynaa marka koowaad madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Saylici
runtii waxaan leenahay maanta farxad ayay inoo tahay bini'aadanku marka ay howlgalaan ee hawshoodii ay ku guulaystaan runtii waxay dareemaan farxad runtii farxad bay noo tahay farxaddaasi uma aho oo keliya xusbiga kulmiye dhammaan waxay u tahay reer somalilan ilaa galbeed ilaa bari alxamdulilah baynu leenahay mar labaad waxaan halka salaamayaa marka koowaad saxaafadda oo BBC Point of West of England ay ugu horeyso oo marti inoogu waa halkan martida sharafta kale ee ka timid meelaha kala duwan TV-gi qaranka oo runtii isaguna inala jooga Home Cable TV oo isna inala jooga madaxdii xusbiyada ayaa odhan karaa dhammaanba ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka UK oo isna halkan fadhiya Axmed Cabdilaahi uqaasha salaadiinta runtii waxaan idinku wada salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib runtii waxaynu u soconnaa somalilan dhisideedii ayaa sidaynu wada ognahay 13 bishan ayay madaxweynihii hore khayr badan allaha siiya ee inoo suuro geliyay runtii golahan maanta lagu tardamay ayaynu sii saboteynaa 13 bishan waxaynu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub oo aynu leenahay ilaahay ha idin fudeeyo xilka runtii waa hawl culus waynu wada ognahay waxaan leenahay ilaahay idin fudeeyo waxaan leeyahay guul somalilan dhammaanteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay cabdilaahi dhiirigelinta uu u diray madaxweynaha cusub iyo shacbiga somalilanba imigana waxaan halkan uga yeedhayaa mikrofoonka cusub rashiid qude waxay nala joogta halkan warbaahintii caalamka kuwa ugu sarreeya ka mida oo ah BBC-dii markaasay halkaa laba kelmadood inooga tidhaahdo BBC-da qaybtay nala joogta cusub baa inoo sharaxi cusub fadal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز هورا سلامة إسلام كنكو سلامية دمان ود مادسنتين عروري عرولة واد كسو قيب كشان سيدا قروح بدن مانتو كسو قيب كشان waxaan doonayaa inaan ingiriisi ugu yara sheegno waayo Andy wuxuu ka socdaa BBC Points West of Somalia inagoo haddana ku hadlana khudbadda ka qayb galnay ingiriisigana ugu yara darno si uu fahmo Andy thank you for coming along today so he's here today to witness our celebration, to witness the, Somaliland has come a long way. So he's come to, capture the moment and speak to as many people as he can. So please welcome him and thank you very much once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Cusub Rashiid aad bay u mahadsan tahay. Imigana waxaan u yeedhayaa cabdicasiis maxamed waa gudoomiye waxaan xogayaha dhalinyarada isla markaana ahaa khasnajigii guddiga qabanqaabada xafladan qiimaha leh falyatafadal cabdilcasiis السلام عليكم دمانتين وسلامتين مدنيال iyo marwooyin waxaan aad idigu mahadnaqaynaa ka qaybgalka soo qayb gashay xafladan gudoomiyihii qabanqaabada iyo gudoomiyihii xisbiga way ka hadleen marka hadalka badin maayo waxaan leenahay waxaan soo dhaweynaa xafladan u qabanay inuu soo dhaweynaa madaxweynaha shanaad ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici marka waxaan leenahay dhamaantiin ku soo dhawaada xafladda aanu soo dhaweyn waxaanu waa duco iyo hambalyo isku jirta weeyaan wax kala ma qabanayno maanta wuxuu yahay madaxweynihii qaranka buu yahay ma kala nihiin maanta xisbi waa ummadoo dhan madaxweyne u yahay reer Somaliland oo dhan marka aanu soo dhaweynaa cid wal oo reer Somaliland ah insha Allah thank you very much aad buu mahadsan yahay cabdicasiis xogayaha dhalinyarada isla markaana ah khasnajiga xafladan qiimaha leh waxaan imigana u yeedhayaa oday xuseen nuux ducaale bismillaahi raxmaani raxiim waan idin salaamayaa dhammaantiin laba eray oo muhiimaan jecelahay in halka idhaahdo midi waxa weeye ummad islaamaynu nahay halkanaynu isugu nimi aayaddaha qur-aanka waa muhiim in wax kasta lagu furo waayo waa barakoobayaan aayadihii qur-aanka waynu ilownay laakiin marka dambe bal haddii ilaahay ka dhigo waa inaad aayadaha qur-aanka shirarka lagu furo mid waa taa midna waxay weeye Somaliland baynu nahay midnimaa inoo dhaxa
calanka somalilan waa inuu ku bato meel kastoo la isugu imanayo haddii aynu doonayno inaynu soomaaliya oo dhan somalilan wada midayno oo dadka isu keenno oo dadka xisbiyada kale ka soo qayb galaan waa inaynu calanka somalilan uu ka bato ka kulmiye waynu nahay sidaasaa dadku ay madaxweynuhu xisbiga kulmiye keliya uma aha ilaa galbeed ilaa bari buu madaxweyne u yahay xisbiyada mucaaradku madaxweyne u yahay waa in calanka kor loo qaadaa somalilan midda ii raacdaa waxa weeye hambalyo waxaan halkan uga dirayaa madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici ilaahay xilkaa culus ee loo doortay ilaahay ha ku asturo kolley anigu sidii raggii iga horreeyey sheegeen madaxweynaha la dardaarmi maayo waxaana loo dardaarmayn ninka maalinta xun taliya ayaa maalinta wanaagsanna taliya oo anigu dardaaran oo aan halka ma jirto aad iyo aad baan idiin salaamayaa reer Bristol xafladan wanaagsan ee aad soo agaasinteen aad iyo aad baan idinku salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay xuseen nuux ducaale imiga waxa weeyaan waxaan u yeedhayaa xagga garabka haweenka waxaan halkan uga yeedhayaa guddoomiyaha garabka haweenka ee magaalada Bristol Ruqiya Cabdi Xudhuun Kaahin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa intiina ka soo qayb gashay intii soo abaabushay iyo intii safarada nooga timidayba xafladeennani waxay daaran tahay inaan hambalyo u dirno xukuumadda cusub ee la soo doortay waxaan halkan hambalyo iyo ducaba uga diranaa madaxweynaha cusub mudane Axmed Maxamed mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa maxamed Ismaaciil Saylici waxaan leenahay ilaahay xilka haydinku asturo waxaan ilaahay ka baryanaa inay noqoto tii agoonta iyo danyartu ku farxad xukuumaddiina aad bay u mahadsan tahay guddoomiyaha garabka haweenka ee magaalada Bristol Ruqiya Cabdi Xudhuun halkan waxaan uga yeedhayaa imigana xidhiidhiyaha guud jaamac cali muuse bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha sharafta leh dhalinyarada marwooyinka guddida qabanqaabada ee shirkan inoo soo qabanqaabisay xubnaha guddida fulinta ka jooga dhammaan laamaha kale ee ka yimi UK iyo dhammaan Somalilandba runtii halkan waxaan kaga salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa runtii maaha habeen hadal waa habeen aynu runtii guul iyo celebration aynu ku jiro waa habeen runtii Somaliland oo khuseeya wax badan baynu waxaan u maleynayaa de stage-ka aynu iska wacyigeliyay ka kulmiye ahaan inagoo campaign ku jira caawa laakiin joogaas waynu ka duwanahay anigoo ku hadlaya magaca guddida fulinta oo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee guddida fulinta runtii uu joogo guddoomiyihii wacyigelinta yaasiin isaga laftiisa uu fadhiyo runtii waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa ka kulmiye ahaan iyo ka Soomaali ahaanba de guusha u soo hoyatay xisbiga kulmiye ee Somalilandba sidaas lamada waxaan halkan ka hambalyeeynaya guddoomiyaha labada guddoomiye kala doorasho tartanka la galay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo runtii iyaguna guusha aynu gaadhnay kamida waxaan jecelahay inaan socodka u garaacdaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jaamac waxa halkan inala jooga nin mujaahida oo ku qaaliya xisbiga iyo qaranka Somalilandba Ibrahim Ciise Daalo waa sawirqaadaha guud ee xisbiga kulmiye qaaradda Yurub bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhammaan waadido salaamaya dhammaan dadweynaha sharafta leh ee halkan iskugu yimi iyo dhammaan waxaan u mahad celinayaa horta marka hore ilaahay baa mahad leh ilaahay oo halkan iskugu keenayna waa nabad qabnaa waxa kale oo mahad leh dadweyne guddida qabanqaabada ee ka soo shaqeysay xafladan quruxda badan leh caawa waxaynu isku nimid waa hambalyo aynu u dirayno madaxweynaha cusub Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo dhammaan maaragtay ciidii shacabka reer Somaliland oo si nabadgelyo leh oo nidaam iyo maaragtay nabad ku dheehan tahay codkooda u dhiibtay oo runtii iyaguna aad bay ugu mahadsan yihiin foodka qiimaha leh
oo ay dunidii nagu majiiratay markaa waxaan leeyahay madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici ilaahay xilkooda ha u fududeeyo qarankana ha ku hogaamiyaan kuwii ku hogaamiye ilaahay ha ka dhigo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash waxaa kaloo mahad leh ciidamada qaranka somalilan oo iyagu mar kasta iyo markii doorashooyinkaba u heegan sidii ay nabadgelyada qaranka somalilan u ilaalin lahayeen maalin iyo habeenba bari ilaa galbeed ilaa bartamaha ayaguna waxay naga mudan yihiin inaynu u hambalyeyno waana la ogyahay gudaha iyo dibaddaba markaa koley hadalka badin maayo dadku waa fara badan yahay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul somalilan ibraahim ciise daalo aad buu mahadsan yahay imigana waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha wacyigelinta iyo abaabulka ee UK yaasiin faarax muuse waad mahadsantahay cumar marka hore ilaahay baa mahad iskale mar labaad waxaa mahad iskale dadka reer Bristol oo had iyo jeer ku sifoobay guul iyo horumarin xisbiga qayli wax ka soo qaatay qiimo weyn oo ummadda Soomaaliland ku leh way wahal bowlaha xisbiga gaar ahaan haweenka waxaan ogahay meesha quruxda badan inay dadka badan dumarku qayli wax ka qaateen dadka meesha ka hadlayeen ay ku yaraayeen saa darteed waxay mudeen loo mahad celiyo aad baad u mahadsantihiin sharafta weyn aad muujiseen magaaladu waa magaalo xisbiga qiimo weyn u leh waa magaalada guddiga fulinta laga soo doortay waxay mudan tahay in loo mahad celiyo aniguna kulli meel dheer baan ka imanay saa darteed hadalka waa noo horreysiyey inaan saa dib ugu noqono waanad ku mahadsantihiin had iyo jeer hiilada aad la garab taagantiin xisbiga sii wadatiin waa inaan xasuusiyo hadalku intaa uga kooban yahay dhammaantiin waad mahadsantihiin reer Bristol iyo inta harriya ka timiday Soomaaliland guul midnimadana hal la ilaaliyo cumar waad mahadsantahay aad buu mahadsan yahay yaasiin intaanan u yeedhin guddoomiyaha UK intaanan u yeedhin waxaan halkan uga yeedhayaa magaalada Bristol baan dib ugu soo noqonaya waxaan u yeedhayaa Suldaan Mahdi aw Cabdi Ibraahim bismillaahi raxmaani raxiim marka u horeysa ilaah baa mahad leh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafka halkan isugu timiday rag iyo dumarba waxaa kaloon u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada guddoomiyaha qabanqaabada Axmed guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee magaalada Bristol ana guddoomiyaha ku-meelgaadhka ah ee magaalada Bristol Siyaad Tukaale Riiraash guddigii la shaqeeyey waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa haweenka magaalada Bristol oo raggii magaalada Bristol muraaqibiin iyo hawl badan bay galeen magaalada dhaqdhaqaaqoogu waa ku yaraa laakiin haweenka magaalada Bristol ee quruxdan aanu arkayno oo waliba xaflado badan oo magaalada Bristol ka dhacay aan maanta siinayo xafladan number 1 sababtoo ah miis walba waxa ku sharaxan waxaan hore u arkin qudrad iyo keeg iyo arrimo aad iyo aad baa u mahadsan yihiin waxaan halkan hambalyo uga dirayaa anoo ku hadlaya afka qurbajoogga Soomaaliland ana suldaankii qurbajoogga madaxweynaha Muuse Biixi oon leeyahay ku soo dhawow kursiga waxa kaloon hambalyo u dirayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar labaadna kursiga ku soo laabtay cabdiraxmaan saylici xafladani waa xaflad iskugu jirtay hambalyo iyo duco dawladdii hore ee Soomaaliland iyo dawladda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici imigana waxaan ku soo dhaweynayaa oday ka mida odayada magaalada Bristol waa Ibraahim Aadan Cilmi Qumaash السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa mahadsantihiin mudanayaaliye marwooyinba dadkiina sharafta leh ee golahan isugu yimid ee xafladda u yimid aad iyo aad baad mahadsantihiin caawa waxaa laga yaabaa inuu hadalku iga gengenmado oo farxaddu way ka duwan tahay farxadihii hore
awal xusbiga horudhigiisa iyo musharaxa dee ayaynu u soconnay caawa laakiin musharaxii baa madaxweyne ah marka hadalku hadduu gengemado raalli ahaada waa dee baalka maad iga dallacdin bismillaah waxaan ka bilaabayaa hadalka guushii kulmiye intii u halgantay inta halkan joogta inta waddankii joogta dhammaantood mahad baanu dirayaa sidaa dadkao dhan u sheegeen laba guulood bay ahaayeen midi waa somalilan oo dhan ayaa guulaysatay oo xusbiga muxaafidka ah iyo xusbiyada mucaaridka ah intii codaysay ee gashay ka qayb gashay codadka dee magac bay somalilan soo hooyeen oo waxaa caalamku uu inagu majeeranayo dee somalilan oo dhan baa u dhannayd xisbi kasta ahaadana waa intii codaysay ee safka gashay ee nabadgelyada ku gashay een isxagxagashada lahayn shacabka somalilan aad buu mahadsan yahay dadku wuu badan muuse kuu yahay caawa ayaan doonayaa 4 tuduuc inaan inooga idhaahdo inkastoo aan ahayn dee muuse ahayn nin cadka dadka loo sheegayo sidii horeba loo sheegay bal anna in yaraan ka dabageeyo bini aadanku markuu ugu baahida badan yahay dee qofka kuu hiliya wax kuu tara weligaa ma ilowdid waxaan ka soo qaatay muuse jiilaalka aynu ogayna ina soo maray dhibaatadii u lahaa waynu ogeyn daruurtii ugu horraysay markay inoo da'day sidaynu u faraxnay ee shimbirihii iyo cid waliba u heeseen ayaan ka soo qaaday jiilaal hawaarsaday dadka oo harraad qaba awrku heeryadii dhigay duunyadiina hoobteen hogashii u curatee harawada biyayse raha ciidda hoosiyo shimbiruhu heeseen hoodaaleyaa tahay hoodaale waa muuse sida curad haliyayo duco waalid helayoo maalintay habboonayd ha qabtiray dadkiisaoo lagu soo hirtaa tahay noo hagar baxaa tahay hayinaan dakaamayn ubad loo dul hayinaan dakaamayn ubad loo dul hooyiya habasaha abaaraha dama la hadhsadaa tahay hayin camalsan baa tahay dal jirhoodalaa tahay dad saboole hagi kara maalintay habboon tahay lagu soo hirtaa tahay ka hareer halista adu gasheen bay haweenkii og yihiinoo waxaan gabadh aan ka dhegaystay tiifiga oo ahayd reer burco sidaan filayo ayaa berigu muuse maraayey ayay ku tiri qoladii kale ku saydhadee mucaaridka ahaydoo heli maysidna hawl yaraysa walaal bay heli mayside hawl yaraysa walaal gabadha magaceedii waan ilooba laakiin de madaxa ugu wanaagsan oo qof dumara la yidhaahdo hodan unbaan ka soo qaatay hodan ka hareer halista adu gasheen bay haweenkii og yihiinoo waa tii hodan sheegtay nimaan hawsarka qaadanoon halistii u badheedhin oo hilaacuu baxay maantow heli maysida hawl yaraysa walaal heesaagii caanbaxay xidiguhuna hiilkii heesaagii caanbaxay xiddiguna hiilkoodii may gabin hambalyaanu dirayaa hadalka aan yaro gaabshee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mala waan dheereeye raalli ahaada bismillaah barnaamijku inoo sii socon doonaa waxaan halkan aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan mar sharafta halkan ka soo qayb gashay waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin kolley waa maalin farxad leh waxaan dee u ducaynaynaa un madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oon leenahay ilaahay xilkaa idigu guuleeyey ha idigu asturo kii dalkoodiyo diintooda baa faca allah inooga dhigo waxaan u yeedhayaa barnaamijku inoo sii socon doonaa axmed xaaji ibraahin aqoon-yahan axmed xaaji aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad baan u salaamayaa dhammaan dadweynaha reer bristol iyo magaalooyinka kale inta inooga timiba dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa runtii marka hore waxaan doonaya inaan halkan uga mahadnaqo inta xafladdan ka soo shaqaysay sida quruxda badan ee muuqata
runtii aad iyo aad bay u dadaaleen marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin hablo iyo inamaba dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin reer bristolna waxa weeye kuma cusba bristol kuma cusba xafladaha iyo guusha kulmiye iyo xisbiga kulmiye inay u shaqeeyaan iyo dhammaan somalilan inay u shaqeeyaan oo si qurux badan oo hagar la'aana ay uga shaqeeyaan mar kasta oo bristol mar kasta oo xisbiga kulmiye ama dawladda somalilanba ay hawli la gudboon tahay intaa waxaa ii raacaya hambalyo halkan aan la soo koobi karayn waxaan doonayaa inaan u gudbiyo madaxweynaha cusub ee somalilan in badan baa waxaa lagu kaftami jiray madaxweynaha muuse biixi dhaartii baa u hadhsan maanta ayay dhaartii u hadhsan tahay markaa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi saylici labadoodana waxaan leeyahay hambalyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan dadweynahan sharafta leh ee rag iyo dumarba leh ee ka soo qayb galay xafladdan aadka u quruxda badan waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa kaloo aan halkan maanta inkastoo mar hore loo mahadnaqay aan haddana uga mahadnaqayaa miidiyaha halkan inala jooga oo tiifiyadii qaranku ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin BBC Point West oo ay nagala joogaan Andy iyo Cosab aad baa u mahadsantihiin waananu idiin mahadnaqaynaa waxaan halkan hambalyo uga soo jeedinayaa iyadoo hadalka aan soo gaabinayo oo dadku kolley uu badan yahay inaan sii dheereeyo ma jecli waxaan halkan aan hambalyo qiimo badan u dirayaa madaxweynaha cusub ee somalilan yeelatay ee la doortay mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici waxaan leeyahay ilaahay xilka aad u weyn ee ummadda u qaadeen ilaahay ha idiin fududeeyo waa markaa ducaiyo hambalya ayaan u diraya waxaan halkan ku soo koobaya oon jaaniskan kaga faa'iidaysanaya maanta oo aan mahad weyn u soo jeedinayaa xaaskayga iyo carruurtayda oo aad mooddo inay somalilan ku dhasheen iyo xisbiga kulmiye oo ay ku barbaareen waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin abaalkiinnii wakaa madaxweynihii somalilan waxaan markaa idinku boorinaya dadweynaha somalilan geedi socodku ma yara waxaan ku soo gebagabaynayaa tix yaroo gabayadaydii tuduc yaroo ka mid ahaa odayaasheennii hoyday erayooyin hanaanle halba uu ka kaleeta ka sii heerar sarreeyo ayay hoodiya caadaha labuur ku wadeen bur hareerta ku yaalla biyahoo hara jiifa baadidoon ku haraadiyo biciidkaa heli waayey waan hadoodilay taana waxaan markaa uga jeedaa kolley wax isku qoofalan lama helo aynu shaqaysanno ictiraaf aynu raadinno somalilan aynu shaqayno waa mahadsantihiin waa mahadsan yahay rashiid qude halkan waxaan ugu yeedhayaa dee qaybtii dumarka layloobi shamis baaruud baan u yeedhayaa waxaan mahad iyo salaan iyo duco intaba u diraya madaxweynaha somalilan imanka la doortay muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici waxaana leeyahay ilaahay ha idinku gargaaro xilka laydiin dhiibay garabkiinnana alla ha galo dadkana alla ha idiin sakhiro gaaliyo islaamba ilaahayna waxaannu ka rajaynaynaa kuwii ku guulaysta ee somalilan ictiraaf u raadiya in aad noqotaan haddaan intaa ka gudbo waxaan salaan guud u wada dirayaa somalilan oo dhan ciidamada qalabka sida dadkii sida fiican doorashada u galay ee somalilan ee inoo soo hooyay sharafta maanta aan huwanayno waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna sharaf ha idiin yeelo sharaf baad somalilan aad u soo hoyseeneen waxaa kale oon salaan u diraya ciidamada somalilan ee dalka iyo dibadda intaba ilaalinaya nabadgelyadana sida la arkay u sugaya ayagoon iyo midnaba aan lahayn ilaahay idinkana nimco ha idin siiyo ilaahayna cadowgiina ha jabiyo ayaan idin leeyahay reer bristol aad baan idiin salaamayaa marka hore salaamullaahi calaykum
annagu koox baanu ahayn ka timid magaalada Coventry aad baan idin salaamaya marka hore Bristol waa magaalo aad iyo aad taariikhda Soomaaliland ugu jirta haddii ay noqonayso waqtigii halganka noqonayso iyo haddii ay noqonayso dib u dhiskii Soomaaliland waa magaalo weyn oo taariikh wanaagsan ku leh Soomaaliland weeyi wanaagii ay lahaydna waa kan uu ka muuqdaa maanta waxaynu dhisanaa qaran ay dhismihiisa wadno oo aan dhammaanayn muddooyinka iyo sanooyinka soo socda waynu ognahay oo ibni aadanku waa uu iska dhintay oo uu ka baxaa meesha wax taagnaada oo waddanka dabeetana waddankaasay dadku ku dhalanayaan maalinba maalinta ka dambaysa oo intaa dad baa dhalanaya dadna way baxayaan waxa la dhisayaa waa taariikhda qaranka ayaynu ka tegaynaa insha allah reer Bristol halkaa kaalin weyn oo mugla ayay kaga jiraan marka hore aad iyo aad ayaan reer Bristol u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad marka xigta waxaan doonayaa inaan hal eray ka idhaahdo doorashadii Soomaaliland ka qabsoontay 13kii bishii November aynu soo dhaafnay waxay ahayd doorasho aad iyo aad heerkeegu u sarreeyo waxa la isticmaalayay oo la keenay markii ugu horeysay Afrika waxaan la yiraahdo Irish recognition-ka oo aan Afrika hore loogu qaban in doorasho noocaas oo kale oo musuqmaasuqeegu aad u yaraado doorasho noqota waxaan yiraahdaan free and fair election noqota oo aad u wanaagsanaato Afrika markii ugu horeysay laga qabtay ayaabay ahayd doorashadii Soomaaliland lagu qabtay qaabkii tartanka loo galay wuxuu ahaa qaab aad iyo aad u wanaagsan qaabkii natiijada ay u soo baxday si wanaagsan ayuu ahaa hadda maanta waxa loo joogaa in qarankii la dhiso oo dadkii la mideeyo dadkii yaraaye kulay fanaaniintii way noo joogtaa waxaan u yeedhayaa un imika ugu dambeyn doono insha Allah Suldaan Cabdiraxmaan Saraaye oo yara maqnaa soo noqday bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa jahliyada magaalada Bristol iyo kuwa ka yimi qurbaha dibadda labadaba halka waxaan doonayaa hambalyo ka diro hambalyadaas oo ah mujaahid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo madaxweynaha ku guuleystay iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici waxaan leenahay hambalyo waa nin runtii aad iyo aad u qaaliya waa nin runtii aan soo karno waa nin wax qaban kara dalka iyo dadka wax u qaban kara runtii wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imigana waxaan u yeerayaa Siciid Koosaar oo dhinaca qosolka iyo madadaalada Siciid Koosaar comedy السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم واركالي السلام هورتي صلاتي كلمية نسمين لك علي ثاني ودوضة أنت كلمية كبرى منا يبقى أنا تسكي ساعة يا سومال نوعي اللي همبوليو بسم الله الرحمن الرحيم حاجة وحكا السلام يا أمد السومالان انت قربها تشوكتا انت ودكيبة تشوكتا waxaan rabaa inaan hambalyo ku iraado madaxweynaheena cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo labadii xisbiye kale la tartamayay because without them competition muu heleen caalamkuna say u dhacday muu arkeen marka waxaan leeyahay Ciro Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraababa hambalyo labadooda laftirkooga waxa weeyaan ilaahay iyo ummadiisa xalaashaaba guurka xalaasha way ku faraxdaa shaytaankana madaxa xanuuna kowde marka doorashada nabadaynu ugu dhacday iyo sida xalaasha ilaahay baa mahadaale inta hadalka keenisle ama calooshu ka xanuunayso waxaan leeyahay peace and love ka shaqeeya shaytaan baa tiire salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kun Soomaaliland gabagabadii barnaamijka waxaan halkan uga yeerayaa si uu inoogu soo xidho hadalkii guddoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye dalkan Ingiriiska waa guddoomiyaha ku-meel gaadhka isla markaana guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee xisbiga koowaad ee xisbiga Axmed Cabdilaahi Ahda oo London ka soo jarmaaday faliya tafadal
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xiriiriyaha waxaan aad iyo aad awalan marka hore ugu mahadnaqayaa guddidii qabanqaabada ee soo qabanqaabisay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee caawa ay isugu yimaadeen dhammaanba bahweynta xusbiga kulmiye oo isaga yimi runtii daafaha UK aad iyo aad baan u salaamayaa reer Bristol waxaan leeyahay waa laydinku yaqaanay inaad xaflado qurux badan oo bilan oo runtii haweenku ka soo shaqeeyeen aad soo bandhigtaan aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa mar labaadka waxaan runtii doonayaa inaan hambalyo halkan uga diro madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Somaliland mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici runtii caawa waxaan filayey in xusbiyadii mucaaradka ahaa ay halkan inoogu yimaadaan oo xafladda inagala qayb qaataan oo runtii ay hambalyada madaxweynaha inoola diraan maadaama madaxweynuhu noqday madaxweyne qaran oo qaranka Somaliland oo dhan uu yahay madaxweyne ee aanu maanta kulmiye u ahayn laakiinse xafladaha dambe xafladda caleemasaarka ayaan filayaa inay nagala soo qayb geli doonaan xusbiyada mucaaradka waxaan iyaga aad iyo aad u hambalyaynayaa iyagana xusbiyada mucaaradka musharaxiintooda Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo runtii ogolaaday go'aanka iyo natiijada ka soo baxday doorashadii aan oran karo waxa ay doorashadiis la qabtay Somaliland laga qabto doorashadii ugu xasaasiyadda badnayd isla mar ahaantaana ugu sumcadda wanaagsaneed ee Somaliland ka hesho sumcaddii ugu wanaagsaneyd markaan intaa ka gudbo Bristol runtii annaga waa magaalo aad iyo aad noogu qaaliya haddaanu nahay guddida fulinta guddideeda fulinta oo muddo 2 sannadood shaqaynaysay iyo laamaha waxaa lagu doortay magaalada Bristol aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa magaalada Bristol intii aanu shaqaynayna Bristol waxay noo ahayd xundurtayada ama bayska ugu weyn ee kulmiye ka duulo waxaan leeyahay caawa tacabkii aad gasheen iyo tacabkii aynu galnay haddaynu nahay xusbiga kulmiye tacabkeenni muu khasaarin waxaynu soo saarnay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen runtii qaranka Somaliland aynu doonayno inay hoggaamiyaan oo ay ku hoggaamiyaan horumar midnimo iyo runtii shaq abuur madaxweynaha la doortay ee mujaahid Muuse Biixi Cabdi runtii waa nin Somaliland taariikh ku leh waa nin runtii halgankeedii waa raggii qoriga u qaatay ee runtii xoreeyey waa raggii markii dambe la dhisayay dibudhiskeediina wax ka dhisay ee dibudhiskaana ka soo qayb qaatay waa nin la noolaa duruufaha iyo dadka Somaliland marba halkii ay marayeen maanta waa madaxweynaha kaliya aynu isleenahay qarankan wuxuu ku hoggaamin karaa hal adayg kalsooni go'aan qaadasho oo intuba ay tahay intii aynu ku doorannay Muuse Biixi Cabdi waxaan ka filaynaa runtii dawlad tayo leh oo runtii aad iyo aad u hufan oo karti lagu doortay rag badan baa halkan ka hadlayay oo yidhi qurba joogtu dawladda waa in lagu yareeyaa anigu waxaan leeyahay qurba joogta laftigoodu way halgameen dad badan oo mutacalimiina baa ku jira cidda wax u qabanaysa qaranka Somaliland ama qurba joog ha ahaado ama qolqol joog ha ahaadee madaxweynuhu inuu soo xusho ayaanu runtii madaxweynaha ka codsanaynaa dee fanaanun baad igu ogeydina siyaasi baa noqday yah miyana noqon karin baryahan dambe waa sharaxanahay meelay noqotoba aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland dibad iyo gudaba idinkuna waan idin salaamayaa sida quruxda badan ee xafladda u soo qabanqaabiseen iyo sida sharafta leh eed u fadhidaan dadka reer Somaliland aad iyo aad ayay nooga farxiyeen waxay muujiyeen bisayl siyaasadeed bisayl doorasho iyaga oo kala maartay soo campaign gareynayay oo kala xisbiya ahaa
ayay si edeble kuyuu u wada galeen oy cadceedda iyo dhaxantaba u adkaysanayeen iyaga oo siisanaya oo ku iibsanaya cidday dooranayaan dhaxantaa u taagnaa iyaga oo isku dhan waxaan hambalyaynaynaa madaxweynaha la doortay waa muuse biix cabdi iyo cabdiraxmaan saylici waan hambalyaynayaa axsaabtii kale ee soo tartantay ayaan hambalyaynayaa ee sida wanaagsan u tanaasulay waa cabdiraxmaan ciro iyo faysal cali waraabe iyo ku-xigeenadoodii waxaan aad iyo aad iyo aad u salaamayaa oon u hambalyaynayaa madaxweynaheenna nelson mandelaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo dalkaaga hore u mari haybiya qabiliska ilow dalkaaga hore u mari haybiya qabiliska ilow dhammani suhiliyo suhiliyo dhammani suhiliyo dalkaaga hore u mari haybiya qabiliska ilow dalkaaga hore u mari haybiya qabiliska ilow dhammani suhiliyo suhiliyo dhammani suhiliyo watayno agagtee rabbo wadimada ka dhowr watayno agagtee rabbo wadimada ka dhowr somalilan ka dhowr waxaan hambalyaynayaa madaxweynahayo dhammaan hambalyaynayaa madaxweynahayo waxaan hambalyaynaynaa kuwii u haneeyey iyo dhammaan hawadeennadii waxaan hambalyaynaynaa madaxweynahayo waxaan hambalyaynayaa